ku dhowaad boqolkiiba 60 oo ka mid ah bilyaneerada adduunka waxay hantidooda aad u sii badatay intii lagu guda jiray sanadka 2020. Shan ka mid ah maalqabeennadaas waxay faa'iideen isku darka 310.5 bilyan oo dheeraad ah. Warbixintan ayaan daawaday idinku soo bandhigaynaa magacyada raggaasi iyo sida ay uga faa'iideysteen sanadkani 2020 oo cudurka Covid-19 saameyn taban iyo mid toganba ku yeeshay dadyowga caalamka. Elon Musk wuxuu ka mid yahay aasaasayaasha shirkadda gawaadhida korontada ku shaqeeya ee Tesla, waana maamulaha ugu sarreeya. Sidoo kale waa mulkiilaha shirkadda SpaceX. Intii lagu jiray 2020, lacag dhan 140 bilyan oo dollar ayaa ku darsantay hantidiisa, sida ay shaacisay warbaahinta Bloomberg. Dhaqaalaha uu maalqabeenkan haysto waxa uu maalintii Isniintii la soo dhaafay ahaa 167 bilyan oo dollar. Lacagta Master Elon wuxuu dhow darajo kor ugu kacay liiska bilyaneerada ugu hantida badan caalamka. Bishii November wuxuu ka sare maray Bill Gates, isagoo sidaas ku noqday qofka labaad ee ugu taajirsan adduunka, sida uu xusay wargeyska qiimeeya dhaqaalaha ay dadku sameeyaan ee Forbes loo yaqaano. Wuxuu Master Elon Musk noqday qofkii hantida ugu badan sameeyay hal sano gudaheed intii uu wargeyskaas waday qiimeynta. Jeff Bezos waa mulkiilaha iyo maamulaha shirkadda Amazon ee alaabta kala duwan ka iibisa dhinaca internetka. Markii uu bilaabanayay sanadkan 2020, wuxuu ahaa qofkii ugu hantida badan caalamka, sidaas ayuuna ugu dhammaaday sanadka. Jeff Bezos keliya ma aha mulkiilaha shirkadda Amazon, balse wuxuu sidoo kale leeyahay wargeyska caanka ah ee Mareykanka ka soo baxa ee lagu magacaabo Washington Post. Sanadka uu koronuhu jiray gudihiisa wuxuu helay 72 bilyan oo dheeraad ah. Wuxuu si weyn uga faa'iideystay suuqa internetka ee sare u kacay intii cudurka safmarkaa jiray, maadaama dukaamadii caadiga ahaa intooda badan xidhnaayeen. Bezos hadda wuxuu haystaa hanti qiimaheeda lagu qiyaasay 187 bilyan oo dollar. Shan waa mulkiilaha shirkadda cabitaanada samaysa ee Nagfu Spring oo ka dhisan dalka Shiinaha, sida ay shaacisay warbaahinta Bloomberg. Hantida Master Shan oo ahayd 62.6 bilyan oo dollar waxay sanadkan gudihiisa ku gaadhay 69 bilyan oo dollar. Shang wuxuu bishii Sebtembar noqday qofka ugu taajirsan waddanka Shiinaha oo dhan. Shirkadda Nagfu Spring oo la aasaasay sanadkii 1969 waxay maamushaa 5 meelood meel ka mid ah cabitaanada dhalada lagu soo shubay ee loo suuq geeyo qaaradda Aasiya. Ninkan 66 jirka wuxuu leeyahay in ka badan 84% saamiyada shirkaddaasi. Bernard Arnault waa mulkiilaha shirkadda iibisa badeecooyinka qiimaha sare leh ee lagu magacaabo LVMH Group ee ka dhisan dalka Faransiiska. waxaa lagu tilmaamaa qofka ugu taajirsan waddankiisa, inkastoo wargeyska Forbes uu ku qeexay qofka labaad ee ugu hantida badan Faransiiska, halka Bloomberg ay ka dhigtay qofka afraad. Arnault wuxuu hadda haystaa hanti dhan 146.3 bilyan oo dollar. Sanadkan 2020 gudihiisa keliya hantidiisa waxaa ku kordhay 30%. Dan Gilbert oo 58 jir ah waa mulkiilaha kooxda kubadda koleyga NBA lagu magacaabo Cavaliers. Sidoo kale wuxuu ka mid yahay aasaasayaasha shirkadda deymaha bixisa ee Quick Loans oo ka dhisan dalka Mareykanka. Sida ay shaacisay warbaahinta Bloomberg, waxaa sanadkan 2020 gudihiisa hantidiisa ku darsamay 28.1 bilyan oo dollar. Hantidiisa guud hadda waa 35.3 bilyan oo dollar. Master Gilbert waa madaxa shirkadda Rocket Companies. Sababta hantidiisa ay u korodhay waa in shirkaddaasi ay bishii August ee sanadkan bilowday iibinta saamiyada iyo qalabka. Keligiis wuxuu leeyahay wax ka badan 80% ka mid ah saamiyada shirkadda Rocket Companies.